بسم الله الرحمن الرحيم. عاو waxaynu baran doonaa barnaamij la yiraahdo iFilter. iFilter waa barnaamij ku ilaalinaya ama ka dhowraya wixii dhibaato ah ee kaaga imanaya mobilkaaga sida iftiinka, hurdo la'aanta dhammaan day waxyaabaha indhaha khatarta ah. iFilter baynu ku qoranaa. iFilter dabcan aniga way dejisay barnaamijka si aan tusaalayaashiisa sida guud galaayo waqtiga u ilaalin doonaa oo bimayl leenahay. ugu horeyn halkaas aynu furanaa. marka aynu furno halkan aynu ka doorananaa gray waa brown waxaanu baahnaa ama black gray ba ka dhig waa gray halkana 42 ka dhig. hadda waad arkaysaa marmarna iftiinkii hore iftiin ka yar ayaynu arkanaa waayo habeenkii markaad leerka iska baqtiso oo kale sabab ku isticmaal kartaa oo iftiinka faraha badan la indhaha habeenkii u imanaya aad ba khatar ugu yihiin. barnaamijkaas kullu wuxuu ka saacidi doonaa dhammaan barnaamijka aad ku gashado tusaalahan waad arkaysaa mobilkaaga hadda waa wanaagsan yahay. dabcan haddaad ka طلعdo xitaa indhahaaga waxa ma yeeliyo marka insha Allah taala haddii barnaamijkaas walaalkay ku anfacay waxaan rajaynayaa inaad subscribe saari doonto like iyo comment iyo share waxa aad jeceshahay. aad baan ku salaamayaa waqtiga ku wacnaado habeen iyo maalmo waqtiga ku sugan mar rabtaa inaad daqiiqad ama 10 daqiiqo iyo hal daqiiqo inta u dhaxaysa inaad ku hesho 5,000 oo friends Facebook ah fadlan tallaabooyinka raac. barnaamijkan idaha waa web oo laga helo Google-ha ama Chrome-ka oo laga helin laakiin Google Play Store. intaana guda galna casharka fadlan haddii aad ku cusubtay channelka subscribe like comment share haddii aad awoodo waad mahadsan tahay. haddaba aynu guda galna casharkeena Google Play Store-ka aynu soo gelinaa dabeet waxaan ku qoranaa web barnaamijkan lagama helo laakiin aniga waa soo dejisan yahay asxaabta qaaliga. kadib waxaad oran doontaa open aad waxaad kala soo degi doontaa hadii ilaahay raali ka noqdo Chrome-ka ama Google-ha. okay open markayna dhana barnaamijka saynu si guda gali karnaa waa simple aad ayuu fidiyaa asxaabta qaaliga. qaybta koowaad ama halka muuqaalka qofka uu eego ku sawray username-ka email-ka phone-ka waxaad ku qori doontaa waxaad ku gasho Facebook-kaaga kadib waxaad raacin doontaa password-kaaga asxaabta ila socda ka degina baabuurka. dibadda talaabooyinka markaan qaadno step by step waxaan u gaari doonaa goobtii aan u baahnayn. barnaamijkan haddii aad fahmaydo asxaabteeda qaaliga qaab kale ayaan u sharaxi doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo fadlan commentiga ayaad ugu dhaafi doontaa haddii uu kugu adkaado casharkan. hadda waxaan ku qorayaa sadarkasan gmail-ka halkan hoosena waxaan ku qorayaa password-ka kadib waxaan odhanayaa zen dabeet waxaan heli doonaa flowin badan iyo friends fara badan haddii ilaahay raali ka noqdo. haddii casharku kugu adkaado fadlan mar kale comment xagga hoose igu dhaaf aniga qaab kale kuga sharxi doonaa. waad salaamantiin dhammaantiin meel kasta dunida ka joogtaan. application-kan linkiska ayaan xagga hoose idin dhigi doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo. mar kale waa salaamantiin asxaabteeda qaaliga toddobaadka waxaanu qaada dhiganaa Facebook iyo macnaha ku dugan. fadlan intaynan u guda gelin barnaamijka haddii aad awoodo fadlan subscribe saar channelka ku leedahay barta YouTube-ka. maanta waxaanu qaada dhigi doonaa Facebook yaa ku soo codsan kara yaa friends ku soo darsan kara yaa following ku seen kara asxaab aynu guda galno intaaba inagoo mid u kala qaaday doona haddii ilaahay raali ka noqdo. ugu horeyn booqo bartaad ku leedahay Facebook sida aynu sii guda galno halka ay muhiimadu taalo aynu hoos u dhaadhacno anigoo markasta fartaydu ugu fiiqi doona goobta aan marayo haddii ilaahay raali ka noqdo. halka waxaanu ka dooran doonaa settings oo ah xoghaynta Facebook dabeet hoos baynu dhaadhici doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo waxaanu ka dooran doonaa goobta ugu habboon ee aan u baahanahay inagu. haddaba public post oo ah bartaynu socono dabeetaynu jinno bartay ku qoratay public post. haddaba waxaad ku arkaysaa indhahaaga haddii ilaahay raali ka noqdo ama goobtan aynu wada eegayno qodobo dhowr ah. qodobka ugu sareeya waxa weeye yaa igu soo darsan kara ama yaa isoo follow garay kara who can follow me. waxba si akhrimayno Englishka faraha badan leh goobta qoran laakiin muhiimadda aanu ka qaadano waxa isoo flow gareyn kara public dad calashaan bulshada faraha badan leh ama asxaabteeda oo kaliya. dabeet labada qodob ee ku taala kolley ka doorarsa friends baan igu yaala. qodobka ku sii xiga hadii aanu sii dhaadhacno waa public friends of friends kaasoo xagga ka sareysa ay ku qoran tahay public post comment. qodobka labaad macno buuran ma laha public post buu ka sheekeynayaa balse qodobka ugu dambeeya haddii aanu dhaadhacno wuxuu leeyahay haddii ilaahay raali public profile info xogtani waxay noo tilmaamaysaa yaa calashaan haddii aan sawir soo dhigo yaa comment ka bixin karaa sida sawirka i yaala profile-kayga
asxaabay haddii barnaamijkan idin raali geliyay aad baan idin salaamayaa meel kasta aad ku sugantiin ugu horeyn haddii uu barnaamijkan idin raali geliyo fadlan like comment iyo subscribe channelka ku dhiirigeliya waad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaa keeni kara muuqaalo aanad lahayn oo aad soo dhigto bartaada facebook aad ku leedahay taasi waxay sababi kartaa guud ahaanba facebookaaga in lagaa xidho ka digtoonow qodobka labaad haddii aynu soo qaadano sawir aanad lahayn oo aad soo saarato bartaada aad facebooka ku leedahay iyadna waxay keentaa in guud ahaanba lagaa xidho facebookaaga iyadoo la tix raacayo qaanuunka sharciga ah ee aad kula heshiisay waqtigii aad samaysanayso facebooka waana sababaha keenan in guud ahaanba lagaa xidho facebookaaga qodobka saddexaad haddii aynu soo qaadano wuxuu ina odhanayaa magac aanad lahayn oo aad isticmaasho taasina waxa ay soo dedejin kartaa in guud ahaanba facebook aad ku leedahay barta facebook isna guud ahaantiiba la tirtiro inkastoo mararka qaar haddii aad raaligelin ka bixiso lagu soo furayo balse ma dhacdo in qofka si fudud loogu soo furo qodobka afraad ayna barnaamijkeena caawa ku soo qaadanna wuxuu ina odhanayaa muuqaalo xunxun oo badanaa dadka qaar aan aqoontooda ay yarta ay soo gelayaan oo aad aan xitaa afkaba lagu soo qaadi karin ayaa jira oo iyadana qodobkaa lagaaga xidhi karo guud ahaanba facebookaaga oo aan dib kugu soo noqon doonin kaana waxaan ku leeyahay walaal ka digtoono hadduu ilaahay raalli ka noqdo kale diin ahaan iyo dhaqan ahaan uma wanaagsana qodobka shanaad wuxuu ina odhanayaa dadka oo aad caydo ama aad aflagaadiso aad sida hanjabaadaha oo kale oo aad iyaguna aanad ka fiirsan hanjabaadoo kale waxay keeni kartaa xitaa dembi in lagugu soo oogo taana waan kaaga digaya walaal hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaa jira qodob lixaad oo isaguna lagaaga xidhi karo bartaada facebook oo ku seejin kara asxaabtaadii qaaliga ahayd ugu dambeyn asxaabteeda qaaliga aad baan idin salaamaya fadlan ha laga digtoonaado qodobada iyo qodobo kale oo fara badanba fadlan haddii aad ka heshay barnaamijkan like comment iyo subscribe fadlan facebook haddii lagaa xidho qaabkii aad u soo ceshan lahayd ayaanu caawa ku qaadan doonaa barnaamijkan facebook ayaan hadda gudageli doonaa si aan tusaalaha qaabkii aad u soo ceshan lahayd facebookaaga haddii lagaa jabsado ama lagaa xado okay gmailka iyo passwordkayga ayaan gelin doonaa si aan u gudagalo facebooka asxaabteeda qaaliga markaanu tallaabada qaadnay ayaan dhammaystiro passwordka iyo gmailkaba waxaanu sii raaci doonaa tallaabooyinka inoo tilmaami doona hadduu ilaahay raalli ka noqdo facebook taasoo ay ka mid tahay inaynu gelino id card ama sharci haddii aad leedahay haddii aanad lahayn waxaad samaysan doontaa fake id oo casharkii maantaan bixiyey uu ku saabsanaa okay hadda waan dhammaystiray qaabkan ayaanu inoogu soo bixi doonaa get start taasoo micnaheedu yahay sii gudagal okay haddii aynu gudagalno barnaamijka maxaa inoo soo bixi doonaa tallaabadii ku xigta aynu wada aragno daqiiqada markuu wareega hadduu ilaahay raalli ka noqdo wuxuu ku leeyahay your account has been disabled ama facebookaaga guud ahaanba waa la joojiyay ama waa uu xidhan yahay haddii aad information dheeraad u baahan tahay sii gudagal buu ku leeyahay okay haddaba waynu ka teginaa qaybtan waxaynu kasoo gelinaa qaybta googlaha si aynu u tixraacno qaab qodobadan inoo tilmaamay hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaynu soo kaxisan doonaa barnaamijka loo yaqaano chrome ama googlaha markaad timaado dhammaantiin oon isla garanaa waxaynu ku qori doonaa disable on enable facebook intaa markaan ku qornay waxaynu sii gudageli doonaa waxaynu ka doonaa my personal facebook account is disable facebook help centerka ayaynu geli doonaa ama xarunta dadka laga caawiyo facebooka okay hoos baynu soo dhaadhici doonaa isagoo sharaxaado fara badan bixinaya balse waxaanu ka raaci doonaa keliya muhiimada taas oo ah sida aynu soo ceshanahay facebookgeena haddii in laga jabsado ama uu inaga xidhmo ama cilada ay ku timaado okay haddii aad english taqaano kale waad sii akhriyi doontaa muhiimada waad ka raaci doontaa okay dabeeta waxaanu tegi doonaa bartii ay muhiimada taala use this from the summit and appeal oo micnaheedu yahay appeal ka qaada haddii ay qalad farsamo ay kugu dhacay dabeeta calaamada akhtarka waad arkaysaa dhammaantaan idiin saaray iyada ayaanu ka dooranaa hadda ayaynu halkii ugu habboonaad nimid ugu horeyn halka koowaad waxaynu geli doonaa gmailkiina qaybta labaad waxaynu geli doonaa magaceena oo dhammaystiran halka ugu dambeysana waxa weeye halka lagaa rabo waa haddii aad leedahay id card ama sharci ayaad gelin doontaa haddii aanad lahayna waxaad samaysan doontaa fake id oo maanta casharkiisa idiin dhigay haddii aad u baahantahay inaad descriptionka ayaan idigu dhaafi doonaa okay asxaabtada qaaliga intaa marka dhammaysta san baynu leenahay dabeet wuxuu kusoo saaraya labada muuqaale hoose oo ah id cardki inaad soo qaado geliso dabeeta aad halkaa kasii socdo wasalaamu calaykum
maanta waxaynu qaada dhigi doonaa barnaamijka loo yaqaana filmate kaas oo kuu fudaydinaya inaad la soo degto sida qur-aan, xaadiisa, heeso iyo weliba wixii aad jeceshahay. haddaba barnaamijkan filmate oo badanaa laga helo chromeka ama google. haddaba sidee ayaynu barnaamijka ugala soo degi karnaa wixii macquul ayaanu jecelnahay. ugu horreyn inaanu gudagalno kana sii doorana youtube halka ay ku qoran tahay falaadha ku saaray. saa markaan usii gudagalno hadduu ilaahay raali ka noqdo youtube-ka ayaa sida kuga soo baxaya. dabeeto waxaad raadsan doontaa wixii dookaaga ah, sport, heesa iyo weliba wixii aad raalli ka tahay. barnaamijka markaan gudagalno aan raadino bal dookheenu wuxuu yahay. badanaa waxay soomaali haddaynu nahay raadinaa heesaha kuwa ugu dambeeya. balan eegno yaro khaawisno heestii ugu dambeysay ee bal fanaaniinteena ay soo qaadeen mid ka mid ah. dabeeto bal heestan aynu click garayno. heesta markaan soo click garayno halkan ayaa sii click garan doontaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. dabeeto wuxuu kugu soo bixi doonaa qaabkan. dookaaga ayaad ciyaari doontaa, mp3 ayaad ka dhigan kartaa ama video muuqaal ah oo toos aad u daawato. haddaba halkaa marka aad taagan tahay keliya waxa ku harsan inaad ciyaarto dookaaga oo la soo degto kii aad doonayso. dabeeto falaadha cas halkan kugu tilmaamayo ee download ay ku qoran tahay aad kala soo degi doontaa insha allah. aad baan idin salaamaya asxaabteeda qaaliga meel kastoo dunida kaga nooshiin. asxaabtayda qaaliga aad baan idin salaamaya meel kastaad ku sugantiin. walaalkiin cabdi xisbaan xil subax loo idin meel kastaad ku sugantiin farxad ku waraa. fadlan whatsapp numberkii halkaa muraayada waad ka muuqda. barnaamijkan idahay waa barnaamij xiiso badan. waxaa laga helaa barnaamijka play store-ka waana magaciisa photomat camera calculator ayaa la yidhahdaa. waa kamarada ayaad wax kastaba ku xisaabinaysaa. qaabkaas ayaynu gudageli doonaa insha allah markaan soo dejino. barnaamijkan waa barnaamij dhab ahaantii kaa saacidi doona qaabka wax loo xisaabiyo. open ayaan leenahay haddii ilaahay raalli ka noqdo si aynu soo gudagalno barnaamijkeena. barnaamijka qaabkan ayuu kugu soo bixi doonaa soo adarkasaan. waxaanad ka dooran doontaan english iyo wixii aad kulli fahmaysa adigu hadday dutch noqoto iyo hadday luuqad kale noqotoba. markaaynu ka doorano luuqadda qaabkan aanu arki doono dhammaantiin ayay barnaamijku u socon doonaa. iyaga ayaana tusaalayaashana siinaya 3 times plus 4 equal 8. qaabkaas ayaanu shaqeynaya buu ku leeyahay. balse aniga oo adeegsanaya qalin iyo mobilkayga gacantaba tusaalayaal fiican baan idin doonaa. waa kan barnaamijku fadlan la soco. hadda gurigayga ayaan ku sameynayaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. mobilkayga oo fiirsada waxaan isku geyn doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. xisaab yar aad 4 times 5 waa 20 aad arkasaan. calculatorka mobilkaygan aan gacanta ku hayo barnaamijka wadaan wuxuu soo saaray 20 waa calaamada cas ee hoose bal u fiirsada equal 20. haddii aan kusii soconno xisaabaad kalena aan soo bandhigo hadduu ilaahay raalli ka noqdo. u fiirsada waa halkan calaamada akhtarka hadda saaray 20 xisaabtaas oo soo baxday. haddana 8 ayaan ku dhufan doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. number 6 48 xisaab soo baxaysa. calculatorkan ama barnaamijkan kamaradiina wuxuu soo saari doonaa wada arkayna 48 muu soo saaray isaguna. mobilka laba mobil baan adeegsanaya asxaabtayda qaaliga. waa mobilka barnaamijka ku wado iyo mobilkan xisaabtooda. hadda waxaan isticmaali doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo qalin oo 4 times 6 ama 4.9 asxaabtayda oo fiirsada. 4.9 xisaabta maxay طبعا waxay soo bixi doontaa sida tan aynu arki doono 4 times 9 bal fiirso maxay soo baxday 6 iyo 30 bay walaalkay soo baxday. waana sax 4 times 9 haddaad ku dhufato 6 haddaad xisaabta ku wanaagsantahay dabcan way soo baxaysaa khasay soo baxaysaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. waayahay aynu ku sii soconno. hadda 6 iyo 7 aynu kala jarana hadduu ilaahay raalli ka noqdo waa 8 asxaabtayda qaaliga dhamaantii barnaamijkan adiga ayuu ku anfacayaa. haddii uu ku anfaco iyo haddii galaba insha allah comment ayaad idhaafi doontaa adigoo kolley ka jawaab celin doona barnaamijka inuu ku raali geliyeen kale. dabcan comment iyo subscribe iyo like intuba lacag adiga kugu qori maayaan balse anaga dhiirigelin iyo faa'iido ayay noo tahay. fadlan waxaanu kaa codsanaa haddii aad waddo inaad intaaba noo dhaafto. kolley xisaab kasta oo adiga kugu adkaata waad kaga shaqayn doontaa sida u qaybida xididka saarta iyo wixii la halmaala. aad baan idin salaamayaa meel kasta aad ku sugantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi